السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي دقالي اسكو سو نقد وناكسن وملاشين ما دقانود iyo markaleeto asxaabi waa ku mahadsantiin sida quruxda badan mar walba aad igu soo biirtaan oo aad subscribe igu saartaan. waxaan rajeynayaa inta dhiman inoo dhamaystirtaan haddii anagu cusub tahay fadlan subscribe naga hilmaamin dabcan firiyo ku tahay walaashaana dhiirigelinayo u tahay lana share garay asxaabtaada familkaaga waana ku mahadsantihiin. asxaabi waxaa jiray fiidiyoyaal aan duubay waxaa lahay hadal waa margo kalaaba meeshii loo jeedo aada marka haddaad wax walba qofku uu soo duuba haddii la bedelo oo meesha xumaanta laga aado waa dhib badanaa hadalka haddii aad xumaan ka dhigtid xumaanoo noqona haddii samaan laga dhigana samaanoo noqona marka waxaa fiican wax walba sida adigoo kale in laga soo qaado qofka walaalkaayo ma fiican inaa ciib baalkiisha wuxuu dhahay inta la jarjaro ama xumaan laga waxeeyo ama xumaan dadka qaarna hadda kelibiyada haaf wax yar ayagoo ka jaran ayaan tiktok ama snapchat gelinaya hadalkii ma dhamaystirna hadalkoo dhammaystiran youtube ku yaalaa haddii aad u baahatay hadalka asagoo dhammaystiran meeshuu kasoo bilaamay adigoo waxba la socon inaa inta comment kasoo bixisid ama kasoo caytantid ama aad war kasoo tiraahdo waa laga fiican yahay. waxaan ka hadlaya waxaan eray markaad cunugaaga 100 ilmood oo kala jaajaan oo kala naas neemdumna u keentid waa qalad macnaha hadalka bilowga inaa kasoo bilaabataa fiicnaan lahayd intiina soo boodin guurku waa calaf ilmaha kala jaajaanka dhalaysinna waa calaf macnaha hadday kuu qorantaa 10 guri inaa soo martid 10kaas guri oo aad maraysaa wax walba markaad xab iyo biyo aheeda lagu qoray anigu kama wado taas ilmahana waa wax ilaahay ku siiyey macnaha anigu taasna kama hadlaayo waayo hadda anigana arkaysid maasha allah ilmo aan kala aabanaha jiro adduunkana maanta waxaan ku doorsanaa ma jirto naftayda waan ka jeclahay runta markii laga hadlo markii nafteeda ay timaato ayaga hadday timaato ayagaan ka hormariyaa markii realitiga laga hadlo marka aniga dadka aaminsan miyihi ilmahan isku aaba maani kalama aaminsan miyihi laakiin waxaan ka hadlayaa gabdhaho waa inay sharaf u guursadaan gabar weligeeda garoob jiri jirtay weligeeda hooyo ilmo haysata la guursan jiray weligeeda si qurux badan loo soo dooni jiray weligeeda macnaha waxaan ka diidanahay gabadha maanta oo dhan intay baxdo hoteelka tagto hoteelka lagu qabaayo kabacdi ay soo noqonayso haddana cunug dhalayso aan cunug aad hadda fiiriyaa gabar baa ayaan daris lahaan jiray gabadhaas maalin walba sanad walba way dhashaa sanad walbana waa aaba gooniya okay guurka calaf waa way guursatay ilmaha ilaah kuma darnaad calaf waayo waa wax ilaah ku qoray waa dhashay laakiin dhibka jira waxa waaye maxaa loo arki laayaa waxaad guursatay sababta loo arki laayahay waa ta guurka waa wax waa macnaha waa sharcina guurka shaacisid oo waxa waaye dhimashada iyo guurka iyo wax qarsooma ma ahan waa in aad ogeysiisaa dadka si dadka ka alqaan hadda gabadhaas wallahi bila dad badan oo ku xamanayaan arkay ayadaan u sababa in la xanto oo macnaha wax yaa ka dhalay odayaashan lama yaqaano lagama dhalin oo guur ma marin oo waxyaabo xun lagu tilmaamayo okay ilmahaaga markay maqlaan waxyaabahaas xunxunka gabadhaada maxay ku fakaraysaa wiilkaaga muxuu ku fakarayaa marka soo kama fiicna si sharafa haddaada guurkii ka maarmaynin si sharafa in inta lagu guursado oo ciyaalkaaga aad barto ilaa gudi labada ninkii loo qari lama kala qariye ninkii loo wada gudi ninkii loo wada lama kala qariye inaad inta ilmahaaga bartido si sharaf la gurigeena u joogto maxaa diidayo soo ceemaan inaad maalin walba lagugu xanto nanta ninkeeda ma arkin waa dhashay waa umul ninna lama arkin soo wax xun ma ahan mujtamacii wax xun soo jiidaysaa wax xuna lagaaga fakarayaa ilmahaaga wax xunay ku fakarayaan marka si akhlaaqa u guurso aysan ahayn haddaada guurka aad ka maarantana iska dhaafa ilmahaaga iska korso ama ninkii ku furay iska soo barbari maxaa marka dhibaatada in haysato oo aad la murugaynaysaan ama aad dadka ku aflagaadaysana maxay tahay aniga waxaan iri haddaad guursanaysiin si akhlaaqa u guursada haddii aad rabtin oo ayna guur rabinna ilmihiina korsada cidna kuma qasbayso laakiin aniga hoteelka ii fiican iyo hoteelka aadayaay isku xishooda yaaqay sharaf baad leenahay sharafta meel yaa looga dhicin meeshan waxbaa waxeenaya waxbaa is waxeenaya waxbaa kala tegay iyo waxbaa waxeenaya waxaas waa ceeb idinkana ceebay ku tahay mujtamacana ceebay ku tahay awlaadiinana ceebay ku tahay wax fiican ma ahan waa guursade si sharaf u guurso مرت سمانها سي شرف المها وكرسو كمان مرت جور سماها نن مرت سمانها odagaaga iska soo sasabo wada kasto kumar odagaaga soo sasabatid oo aad soo cishitid maadaama guurna aad ka maarmin ilmahaagana nin kale aad u rabin خلاص laakiin waa baxa war ilaah baan kugu dhaarshay kaalay adigoo ma ku fakaraysid miyaa do you think ninkan hotelka kugu wacday ilaah baan kugu dhaarshay inuu mustaqbal rabo waxa arkaa kuba dhahaya ilmaha buuqooda aan la rabin أنا نينا أكتر إنه المها بوقي سربين أنا ما حكوا فله إلهي أمر كش بدنا وأبوجه ده نكا وحكوا يا المها بوقه ده مرة بو نكان قبل سنجل متي أنا سنجل هم وأجيه وحكوا المها بوقه ده مرة بيقوليه
nina ilmahaaga buuqooda aan rabin muxuu kaa rabaa wadkaana yani macnaha ilaa intuu ku rabi karaa war hadduu ninka ku jecel oo ku raba oo mustaqbalka kaa raba waa ninkii adiga iyo ciyaalkaaga soo dhexgala ya baalka sheeg mideeda kale ilaah baa inku dhaarshay dadkan dhahaya ilma gurigaan iskama dhex keeni karo ninkan ilmaha lagama ilaalin karo adduunka waa xumaaday adduunka inuu xumaaday annagama waa ognahay adigana waa ogtahay anagana waa ognahay ilaahay subxaana qaadir kulliba waa u jeedaa waxaa waaye yaa ku jira ninkan adiga ilaah baan kugu dhaarshay ani carruurta war haddaa shaki u badan tahay guryaha kaamira inaa ku xirato inaa laydiin qaataa haddaa saas u shaki badan tahay ilmahaaga waa la waardiyeystaa ama ha lagu qabo ama yaa lagu qabin mas-uuliyadda sida hore usoo sheegay adigay ku saaran tahay maahan marka ilaa maalinta ay kuskus ka dhigatiin ilmaha waa tana fiiriya ani hore aan kuu sheegay waxaa u malaynayay inay idinka ilmaha u baqis ilmaha u baqi maysina nimankii aan ka diidayo waxay dhahayaan naag ilma wadata yaa rab naag ilma wadata maxaan ku falaa ilma maxaa usoo dhexgalaa okay walaal ilmaha hadaadan rabinin gabar aan ilma lahayn raadso adigana gabaray ninkaan ilmahaaga hadduusan rabin nin mustaqbalkaa raba marahane faraha ka qaad maxaa naftaada u dhibaysaayo naftaada been iskugu sheegaysaa ninkaan inuusan ku rabin waa ujeedaabe ilaah baa ku dhashay madaxaan soo fura madax fur mideeda kaleetaba maba ka dhargaysidba waxaane maxaa ahayd biyo sacbadaada looga dhargaa maqli jiray waxaa soo xasuustaa waagii la yaryaraayo teenagerka lahaa dadka xasuusto marka wax lagaa celiyo waxaas maanta oo dhan wixii aad la dhudhumanaysid wixii wax khatara والله بلا تلا حتى waxaan arki jiray gabdhaha markii oo yar yar kaayo shukaansiga iyo waxaas aado darashadaha ka boodi jiray oo nimanka la fikan jiray oo maxaa waxaas because wixii waxa looga dhigay wax cariiriya noloshiya gabadhiya waxa laga dhaadhicinaa ha guursanin ninaan waxba haysan ha guursanin ninkan waa reeqan sax ha guursanin ninkan cidaas ka soo jeeda ha guursanin ninkan isma guursano ninkan naagu qaba ha guursanin waalidiinta umay deyn jirin carruurta jooska ma siin jirin ninkan adiga ma ka heshay hadduu wax haysa adaa ku qanacsan hadduu wax haysan adaa ku qanacsan maanday ninka ma jecesha ahaa keenso aabeed u geeyaha loo xalaaleeyo meesha doon ha kala dhaco ilaahu may ruuta qaleela la soo cunto ha ka soo jaba gaarto ilaahu kuma darrada ninkan reer qansax ma yahay adiga waxba kaama gelin ayadaa ku qanacsanay ha iska raacdo ninkan macnaha naag ma qabaa ayadaa ku qanacsanay si waalidiinta waxaa la rabaa inay ilmaha jooskooda siiyaan maadaama ay qaangaar yihiin laakiin waalidiinteena waxay samayn jireen ninkan waa reeqan sax guursanin ninkan laagu leeyahay guursanin ninkan waxba ma haysta guursanin markaas ilmihii waxay la dhudhuuman jireen waxa arkaysaa gabdho waxa arkay Soomaaliya gabdhaydii soo 13 jir 14 jir wada garooba waa bixay naago ninay hoos ka soo mehersanay ninay soo khudba saraysanay hadhowta markay naagta gabadhaas guriga ku joogtaa waa gabar adiga hadhow markii nin laga soo doonto gabar ahaan oo bixinaysaa gabadhina gabar ma ahan waa hoose waxay warabta ka soo walaaqat soo ceeb ma ahan marka waxaas waxa keenayo hadii gabadha markay qangaarto la arkay inay nin raadis iyo nin iyo shukaansi ay bilowday intaad reeqan sax iyo reebel ku xir lahayd nin haday ku keensatana ku dar wuxuu doonaha ahaade ayada ku qanacsanay hadduusan nin aysan ku keensanina arkaysa gabadhaada inay nin rabtana ama wiilkaaga naag u rabana wiilkaagana naagta u doon u aroosi gabadhaadana nin ku dar simple reeqan sax iyo reebel iyo dhibaatada waa dhibaatada hadda keentay mujtamaci u wada waalan yihiin wada kareesiyaal u yihiin oo gabdhihi ayagoo yar inta lala fikado la doonto dhibaato ay soo maraan waa dhibaatada annaga mujtamaceena haysato waaye wadanka ina aragto ma qana ilmihii gabadhihi ayagoo 16 jir 3 mar 4 mar la soo furay waa 16 jir adduunka u cusub maxaa waxaas waaye guurkii wixii iyo si wax loogu diiday waa reeqan sax reeb loo dhahay gabdhihi waxay la dhudhumanayaan marka waxaas wax fiican maahan dhaqan fiican maahan mujtamaceena u fiican maahan aan ka taxadarno waxaan annaga aan sameeyno awlaadeena saameynaysa mujtamaca wixii saameeyo sidoo kale awlaadeena ku soo noqonaysa wax fiican ma dadkii ilmihi ha uga dhiganina wax caadi ah gabar inta iska baxdo hotel inta lala tago la iska soo diro wax caadi ah yaa laga dhigin caadi ma ahan dhaqanka kuma fiicno islaan anaga dhaqmaadaysa iyo ilmihi u korkoreeno waxay rabtaa samayso laakiin gabar yar oo dhalayso oo rabtay inay caawi cishana dhasho ilaahay kuma darnaade ilmihi ka qarina no waxaas wax fiican ma dhaqan fiican ma ahan waa dhaqan xun hadaad guursanaysid si sharaf u guurso hadaad guursanayna oo aad guur rabina ilmahaaga iska hayso hadii aad intaas dhan ka baqaysana ninkaaga iska barbari iska soo cisho de iskala korso ilmaha iskala korso ya والله بالله أنا ولا على يا بجري إسلامها ده أنا كان أنا ما جعل المها درتي سان كويستا حنا جرى واي قفنا
noloshaada maxaa u baabi'inay ilmaha darteed ilmahaadaa ka horeeye walaahi bilaa kuwaasa inka saxsan waaye ma raban inay ilmahooda iska dhex keenaan guurna kama maarmaan marka sidaas darteed ilmahooda iskaga korsanaya nimankooda iskala joogaan wax walba ugu dul qaadanayaan aniga walaahi hadda gabdhahaas waa fahmaya waagi horeta ma fahmi jirin waxaan dhihi jiray see qof noloshiisa ugu qamaara hadda marka halkaas waxaa ka cad inay maadaama guur aysan ka maarmin inay ilmahooda ninkooda iska sasabtaan oo ilmaha ku haystaan anigu intaas waa inay hadalkan qalad yaa loo fahmin يعني سيد مرقد عمل هذا كهبة دين عيالو جيدين أصحابي أنا أنت أصلا أوقف بحي والله بالله وحيابها اللي يسوق قرى مركان أركي أنا أوقف هذا واي أنا هذا الكوناجا كودي ماشي وناجا كفيري هذا الكحمان هي بدلني أنا مال لما هي ما كسر جدا محا لما هي لها باكينو يعني جورك وعلف ورجورك وعلف طبعا طبعا لبعتن هذا إن الجوت على الجلي إلها كوقري إلما أنا إلها كوسية أنا وتعسك مهلاي وحن كهلايا هدي أتجورسنا يسد شي شرف أجورسو وجورجا هلو جوي ماذا هلو جوي ماذا نك أتجورسنا شي شرف الجورجا كوجي ماذا هدي أتجورسنا إلما هاجس ككرسو أنا كنت أسبان إيري هدي كلا نك هاجس كبربري أنا كنت أسبان أنت ساوقا بحياة أنت فيديو لما تدي بقول مدون وحين الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسلامتين.